Waata maanta versionka cusub ama update-ka cusub ee lagu soo kordhiyay WhatsApp-ka 8.61 update-kan oo runtii ah ama wax badan ka duwan midkii hore oo waxay ku soo kordhiyeen waxyaabo badan. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa sida aad update-kan aad u soo degsan lahayd si mid ah waxa ugu muhiimsanaa oo ay ku soo kordhiyeen shirkadda. Runtiina wax badan ay ka soo bedeleen update-kan oo waxay ku soo dareen waxyaabo badan oo cajiib ah. Muuqaalka ayaan kugula wadaagi doonaa ila dhameysay ilaa dhamaadka. sida caadada like sar muuqaalka dhiirgelin ay noo tahay si muuqaalada noocan oo kale u soo badano si lamid ah dadka kale ay u sii gaaraan oo ay uga sii faa'iideystaan waa tahay ayna hore u sii galno marka muuqaalkeena oo waqti badan ma sii lumin doono ugu horeen aan kula wadaago qaabkii aad u soo degsan lahayd update-kan ama version-kan 8.60 update-kan linkigiisa waxaan kuu soo dhigayaa qaybta ee description-ka haddaba waxaad u baahan tahay inaad ku soo dhufsato linkiga yaalo qaybta ee description-ka markii aad ku soo dhufsato wuxuu si toos ah kuu geyn doonaa browser-ka kugu jira mobile-kaaga ama koromaha mid alaala iyo midkii kugu degsanba kadibna si toos ah ayuu halkan kuu keeni doonaa markii aad linkiga ku soo dhufsato oo wajhadan ay ku soo saaraya markii uu wajhadan ku soo saaro waxa aad adigu baahanta ayaa ah inaad la soo degto waxaad ku dhufsanaysaa meesha buluugta ah oo ay ku qoran tahay fuad.whatsapp.8.60 version hadaba qaybtaas ayaad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufsato qoraalka ah kadibna si toos ah ayuu isku wareejinayaa kadibna qaybta hoose waxa kaaga soo baxayso do you want to download ma doonaysaa inaad soo degsato waxa leedahay oo kaliya download ayaa leedahay balse hadirtaan aniga cancel ayaan iska saarayaa maadaama aan hore u soo degay mid ah waxa laga yaabaa in uusan download ku weydiin uu si toos ah isu soo dejiyo hadii uu download ku soo qabto downloadka ayaa taabanaysa si mid ah hadii uu okay ku soo qabtana okay-da ayaa taabanaysa kadibna waa uu ku soo degayaa daqiiqadaha yarka ah ee ku soo degay ayaa sugaysaa markii uu ku soo dego WhatsApp-ka waxaad sameynaysaa ama aad si toos u soo galaysaa WhatsApp-kaaga ayaa toos u soo galaysaa waana muhiim markii aad soo degsanayso update-ka inaadan daleedin update-kii hore ee WhatsApp-ka kugu jiray waad sameyn kartaa oo waad delete gareyn kartaa laakiin hadii aad delete gareyso adigoo aadan backup gareyn xogtaadii ayaa ka dhumayso sida caadiga ah adigoo aadan kii hore daleedin kaliya ku soo duldeji way isku soo duldegayaan kadibna waxa ku noqonaysaa update cusub waa tahay marka aynu hore u galna marka runtii qaabkan ay u yaalaa update-ka cusub ee runtii 8.60 waa isla qaabkii laakiin waxyaabo badan ay ku soo dareen oo runtii ka maqnaa midkii hore oo xitaa runtii shirkadda WhatsApp-ka ay ku soo dareen taas oo runtii si lamid ah update-kan ay ku soo dareen shirkadda waxyaabahaas waxa ugu muhiimsan disappearing message ayaa macnaheedu waxay tahay message-yada istirayso update-kan ama service-kan ayaa ku soo kordhisay shirkadda WhatsApp-ka maalmihii ugu dambeysay hadaba waa maxay disappearing message sidaas ayuu u shaqeeyaa marka disappearing message ayaa wuxuu u shaqeeyaa qaab ah in hadii aad qofkan aad la sheekaysanayso ama groupkan aad ku jirto aad runtii disappearing message aad saarto 7 maalmood kadib message walba aad dirto wuxuu si toos ah u delete gareyn doonaa oo ka delete gareyn doonaa adiga dhankaaga iyo silmada qofkaas kale aad la sheekaysanayso taas ayaa waxay la macno tahay marka message walba ee 7 maalmood ka soo wareegato way istirtiri doontaa hadii sawir ahaan leed hadii ay qoraal ahaan leed hadii muuqaal ahaan leed hadii cod ay tahayba way istirtiraysaa hadaba service-kan iyo sida loo furto ayaan kugula wadaagayaa number 1 hadii aad la hadlayso contact caadi ah ama aad rabto number caadi ah inaad ku xirto barnaamijkaas ama shakhsi caadi ah waxaad ku dhufanaysaa shakhsigaas ay si toos ugu dhufanaysaa markaad ku dhufsato kadibna qaybtiisa kore ee magac ah ayaa taabanaysaa markaad qaybtiisa kore ee magac aad taabato waxaad sameynaysaa xoogaa aad hoos u sikanaysaa kadibna waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay disappearing messages aad ku dhufanaysaa hadaba disappearing messages sidii aad ku dhufato sida tan ay ku soo saaraya oo wuxuu ku leeyahay 7 maalmood kadib message-yada way istirtiraysaa kadibna waxaad sameynaysaa continue ayaa leedahay markaad continue dhahdo waxaad sameynaysaa marka si aad service-kan aad u saarato waa muhiim marka hadii service-kan uu ku daaran yahay ogow in message walba ama wax walba idin dhaxmar shakhsigaas 7 maalmood kadib in waxaas ay istirtirayaan hadaba marka iska jir waxyaabaha qaarkood inaad saarto laakiin hadii aad contactyada kuwooda kugu muhiimsan aad saarto in badan ogow xogtaada in wixii aad ku sheekaysateen ay ka bixi doonto marka waxaad sameynaysaa on ayaa sameynaysaa on markaad taarto kadibna gadaal ayaad ugu laabanaysaa waxa la macno tahay hadirtaan in disappearing message-ka oo inoo daaran yahay si lamid ah marka 7 maalmood kadib message walba aan isu dirno marka shakhsigan aan la hadlayo oo aan isku la sheekaysano hadii message-kaas 7 maalmood ay soo wareegato wuxuu si toos ah sameyn doonaa inuu isdelete gareeyo hadaba waxaad aragtaa geeskiisa waxa fuulay calaamada fuushay
oo calaamadaas waxa la macnaheedu disappearing message ka ii daaran waa macnaheeda marka disappearing message kana qaabkaas uu yaala waa muhiim marka in yani qaabkaas aad u furato hadii aad doonaysid in marka aad iska xirto waad ka dhameysatay waxaad imaanaysaa isla shakhsigii kadibna waxaad sii imaanaysaa disappearing message kadibna off aad iska leeysaa oo hadeertaan message-yadaadii isma tirtirayso marka 7 maalmood kadib baashi ama geedka yare profile ka dul saarnaan waa uu ka degayaa silmada group-yada ayaad saaran kartaa